haddii aynu eegno riyada Turkiga Turkigu wuxuu ku riyoonayaa inuu hogaamin doono ama hogaamiye cusub ee siyaasadda bariga dhexe uu noqon doono Turkigu gaar ahaan xukunka hadda ee Recep Tayyip Erdogan wuxuu doonayaa inuu dib u soo nooleeyo saameyntii Cusmaaniyiinta ee ay ka talin jirtay inta badan bariga dhexe iyo inuu noqdo difaaca dunida muslimka Turkigu wuxuu isu haystaa inuu noqon karo kan difaacaya dunida muslimka ah waana riyo asigu uu hadda ku riyoonayo oo hogaamin cusub oo siyaasadeed inuu ku noqdo uu ku rabo wuxuu kaloo Turkiga uu riyadiisu ay tahay inuu la tartamo Carabta iyo Iiraan labaduba hadda ma ahan kaliya inuu Carab la tartamo ama Iiraan laakiin Carabtii oo midaysan iyo Iiraan oo awood kala gaar ah ayuu doonayaa inuu la tartamo haddaba xiisadan marka Iiraan waxay Turkigu siisay fursad uu ku muujiyo saameyn military oo Syria iyo Iraq ka jirta diblomaasiyad uu kula macaamilo Ruushka NATO Carabta iyo Iiraan iyo inuu noqdo dhexdhexaadiye balse sidoo kale ah tartame kaliya dhexdhexaadiye isku meekayn ee tartamo ayuuna dhaga kale u noqday Turkigu mararka qaar wuxuu ka hor yimaadaa Carabta gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga isagoo ku eedeeya inay taageerayaan nidaamyo ka soo horjeeda danaha Ankara